الله الرحمن الرحيم ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka kariimka caawa 2020 bishii 12 habeen axad ay sii baxayso isniin soo galayso maanta taariikhda waa 20 ama 2020 waxaan leenahay markii ugu horreysay saxaafadda siiyo warbixin intaan soo qabanay maybe 8 sano oo dhisnaa jaaliyadda Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeed ku adeegto ee ka dhisan dalka Belgium sportiska dadka diidmada la siiyo dadka jeelasha ku jiro dadka dhibaataysan oo dalkii joogo inay wax gaarsiiso sida curyaamada kale sida maaragtay kuwa kubadda cagta kale inta abaaraha kale waxyaalaha badan ka qayb qaadato inuu ku hadlayo magaca jaaliyadda gudoomiyaha ku hadlayo waxaad moodaa jaaliyad la'aan waa iftiin la'aan dowladdan aan joogno ee xarunta midowga Yurub ee Brussels markaad rabtid inaad la xiriirtid adigoo shakhsi waxa ka weyn adigoo jaaliyada inaad la xiriirtid maxaa yeelay jaaliyada markaad la xiriirtid wax walba way kuu fudud yihiin laakiin markii aad tahay shakhsi meel aad wax ka bilowday albaab kuu furmaya ma jirto waxaan leenahay annagu waxaan rabnaa in dadka wada shaqeyno qof kastana oo nala shaqeynayo diyaariga Soomaaliyeed hadday noqoto maskax hadday noqoto aqli hadday noqoto murti intaba waa muhiim dalkan haddaan ka hadlaayo ee dalka Belgium ama xarunta midowga Yurub ee Brussels ma jirin jaaliyado hore Soomaalida aad ugu yaraan 2015 Soomaalida noogu horeysay 2010 2008 2009 maaragtay 9 ma jirin Soomaali badan dhibteena waa yar laakiin hadda wax moodaa markii dadku bataan dhibteena waa badanaysa laakiin haddii la wada shaqeeyo horumar la gaarayaa dowladaha aan la deganahay isku yimid dalka wada joogan ka mid noqonaynaa waxaa dhacaysa maalmo taariikhda Soomaaliyeed raba dib in loo baaro ee Soomaaliya maxaa rijal u ah maxaa Soomaaliya ee dabadhiskeedu muxuu ahaa oo ideedu muxuu ahaa cunnadeedu maxay ahayd hadalkeedu muxuu ahaa intee ku taala Soomaaliya lagu leeyahay marka waxyaalahaas oo dhan baa jiro marka in gacmo wada jir ay geed ku gooyaanayaan qabsana gacantana qabsano keena jeel ku jiro aan san u adeegi jirnay ugu adeegna hadda soo badanay maalmaha astaanta qaran aan isku soo baxno sidoo kale maaragtay markuu meedka dhaco karo dhamaan aan danaha guud ka soo tagno danaha gaar ka soo tagno danaha guud isku imaano danta guud iyo danta gaar la kala yahay tan waa danta guud haddana idinku hadlaayo waxaan jirta dalka inuu masaajid Soomaaliyeed isku hadda ku yaalo iskaaman ku sii badanaya Soomaalidu maqaayadu sii badanayaan isdhexgalku sii badanayaan la baranayo anaga Soomaaliina nahay laakiin awal markaad ku yartahay meeshu qabadkaaga waa yaraanaya laakiin hadda qabadkeena waa 100% hadday noqoto inaan hadda ciyaarsiin Ronaldo iyo kooxda aan sii galayno da'da yar ee dhalinyarada aan ciyaarsiino waqti loo qabto awal waxaan wadna dadka weyn inaan ciyaarsiino waqti gelino waxaan rabnaa inaan luqadda kale laga saacido dadka dhibaatada haysato maaragtay faktuurada qaldan loo soo diray aan ka saacidno hadday noqoto waxyaalaha soo faraha badan ururku waa ballaaran maadaama afkiisa ku hadlaayo ama jaaliyadu way badan tahay jaaliyada kalena waa jiraan ee Soomaalida kan ka dhisan aan ogahay ama aan la shaqeeyo marka waxaan leenahay aqoontu waa ifkiinka dunida marka shakhsi marka dawladda ku abaaraysid waxa ka wanaagsan wada jir inaan ku abaarno wada jir ku tana dawladdan aan dalka aan la deganahay ee martida u nahay marka waxaan rabnaa dhibtuna markay yar tahay dadku way yar yihiin markay dhibtu badan tahay dadku waa badan yihiin isku xirin dhibtii dadku marka waxaan leenahay wax walba dulqaad loo sameeyo hadda dad badan jeelasha ku jiro dad badan baa maaragtay dil ku rooyahay meel wax ka bilaabanana garan iyo dad badan hadda dibadda jir aan siinay waa jirta haday noqoto guriyihii inaan la raadino inaan dibadhiskooda ka fakarno inaan kubadda uga fakarno inaan qofkii stresska ka saarno oo qofku guri isku xiri lahaayo daaqada iska tuuri lahaa in noqon lahayd wuu jirta dad badan hadda dalkan aan ka qayb galay ama aan tagay ama maaragtay aan la soo ogeysiiyey oo daaqadaha iska tuuray wuu jira stress kaliya waa dadkii hore waa meesha ku daalay marka waxaan leenahay dadka dambe dadka hore waxay isku jaan qaadaan marka dadka hore leh waa dad 20 sano ka hor meesha joogay oo Soomaalinimadii iyo waxyaalaha soo dhanba dadkii iska iloobay dadkii dambana waxa waaye waa dadkaas in la qabsadaan oo isku aragta laakiin waxaan raadinaynaa contact wax laado ama wax la saaxiibtinimo ama isdhexgal dadka oo Soomaali marka waxaan leeyahay nina soo yiri nina soo qaado waxaan ka wada waa wanaag ma aha xumo qofna aan wanaajiyo wixii aan haleeyana shaydaan ay u lahaadeen jariidan Soomaaliyeed maybe waxay dhisan tahay 8 sano 8 sanana waxa way qabad sameeysaa waxa jiro xilliga winterka la yiraahdo ama xilliga la yiraahdo xagaaga Soomaalida xagaaga u yaqaanaan
oo qaboobaha ay dhacaan waxaan sameynaa koob kubadda cagta ee Yurub oo dhan iskugu yimaadaan waxaan ku qabanaa magaalada Antwerpen waxaa jira xilliga winterka ama xilliga qaboobaha ay dhacayaan barafku dhacayo inaan zaal football ku qabanno aan kooxaha Yurub oo dhan isku keenno dhowr sidoo kooxood isku keenno waxaasoo dhan waa jiraan YouTube ku jiraan hadda waxaan rabnaa inaan sii weyneyno aan sii ballaarino gabdho badan aan ku soo darno jaaliyadda maadaama gabdhuhu weyn hal iyo laba ay yihiin qadal badan haan ma buuxsho klibkan wuxuu xambaarsan yahay gacmo wada jir ay geed ku galaan ama maartay geed ku dhaqaan ama lagu maartay lagu dhaqmaa haddii wada jirka la waayo kala qobqobka wax badan oo naga halaynaya wana salaamintii dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh